ku dhawaad muddo sanadaha oo kulamo gaargaar ah iyo wada hadallo ay u socdeen madaxda Soomaalidu waxay ku guuldareysteen inay ka heshiiyaan wax fadhi maalin ah lagu dhameyn karay sida ay rumaysan yihiin dad badan taa oo habka doorashada 329 xildhibaan iyo hal madaxweyne si ay dalka u hogaamiyaan muddo 4 sano ah sida uu qorayo xeerka qabyada ah ee dalka u yaala ugu yaraan dhowr iyo 10 fadhi oo ay iskugu yimaadeen iyo shirar maalmo iyo habeenno badan qaatay ayaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday waxaana beer daran noqday dhaqaale iyo waqti looga faa'iideyn karay bulshada la daala dhacaysa colaadaha dabada dheeraaday abaaraha soo noqnoqday diihalka gaajada macluusha isku bedeshay meelaha qaar iyo xanuunada dhakhtar la'aanta ugu soo dugaalay ama u kaalmaystay diyaaradaha wufuudda siday waxa ay dhan walba u dhaafayeen dhallaan duuma la ildaran umula jeenan waayay waayeella jandhagay iyo nugul aan kala sooc lahayn oo ku sugan meel kasta oo dalka ka mid ah kuwa oo ay ehel yihiin mar kalena ay madax u yihiin mar saddexaadna ay ka roon yihiin xagga haynta si walbana uga mudan kaalmayn daryeel iyo damqasho joogto ah qarashaadka faraha badan ee ku baxayay hoteelada qaaliga ah goobaha amnigooda aadka loo adkeeyay martiqaadyada iyo xafladaha aan muhiimka ahayn baabuurta aan xabadu karin oo ay madaxdu isku ilaaliyaan iyo laaluushka lagu kala xodxodanayay dalaaliinta bulshada waxa saacad walba u nafbaxayay muwaadin amni darro ama saboolnimo sababsaday dhanka kale haddii aan eegno lacagaha malaayiinta kor u dhaafay ee loo adeegsaday hababka aan munaasibka ahayn ma ahayn kuwa ka yimid jeebka siyaasiyiinta ee waxa ay ahaayeen dhaqaalihii loogu talagalay in loogu adeego bulshada kuna yimid laba qaab midkood waa qaabka koowaade deeq ay dunidu ku bixisay gargaarka bulshada Soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliya iyo qaabka labaad oo ah canshuur laga qaaday ganacsiyada farakutiriska ah ee ganacsatada Soomaaliyeed kasoo ku tagrifalka dhaqaalaha mas'uuliyadda iyo waqtiga laga lumiyay dadka waxaan si naba loo qaadan karin meel ka dhaca iyo yasmada bareerka ah ee ay siyaasiyiintu kala kaceen garaadka bulshada Soomaaliyeed iyo sida ay ugu dhiiran yihiin hadallada xilkasnimada ka maran oo ay har iyo habeen la taagan yihiin warbaahinta ayagoo midba midka kale uu warcelinayo iyo shirarka jaraa'id oo ay isla garab yaacayaan nuxurkoodana lagu soo koobi karo weedii ahayd coonay can weyn yaa ka can weyn meel ka dhaca iyo quursiga inta leeg malaha bulshadu wayba ka qanci lahayd haddii ay wax uun ku heshiin lahaayeen waxaa jab iyo naasabeel kale shacabka uga dhigan sida ay ugu fududahay inay ku kala tagaan goobaha wada hadallada ayagoo aan waxba isku afgaran isla markaana cod dheer ku sheegaya inuu shirkii sidaasi ku fashilmay waxaas oo dhan waxa ay noqonayaan qarso marka loo soo hadal qaado sheekooyinka la xiriira sida ay ugu dhagan nugul yihiin shisheeyaha iyo hadallada ajnabiga iyo sida uu midba midka kale ugu dacweynayo safiirro iyo wakiilo yaryar oo danta dalalkooda inay ilaaliyaan u jooga xayndaabka yar ee ku dhex yaala aeroboortka Muqdisho waxaan marar badan beesha caalamka u gudbinay waxaan beesha caalamka by the leaders of the federal government of Somalia xalwa dawlad kale oo ka dhex samaysan ummadda Soomaaliya dhexdeeda ka samaysan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan arrinta sidaas u arkin laakiin marka loo fiirsado dhacdooyinka qaar waa hubaal inaad dareemaysid ceeb iyo wejigabaxnimo go'aamurtay oo ay siyaasiyiintu u soo hoynayaan dadka Soomaaliyeed oo adiga iyo aniguba aan ka mid nahay aan milicsano haddaba kuwa iminkana dul hoganaya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku waxa ay shirar isdaba joog ah ku yeesheen magaalooyinka Baydhabo Garowe Dhuusamareeb oo 4 mar ah iyo magaalada Muqdisho oo caasimadii dalka ah dhammaantoodna ma jiraan wax la taaban karo oo ka soo baxay marka laga reebo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ka oo in badan lagu soo celceliyo balse aan wax uu soo kordhiyay muuqan ilaa iyo hadda hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar heshiiskii 17 Sebtembar magaalooyinka afarta ee Baydhabo Garowe Dhuusamareeb iyo Muqdisho waa magaalooyin Soomaaliyeed waxaana jooga Soomaali ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimo aad u garanaysa diinta eebe odayaal waaye jooga kuna xeel dheer dhaqanka iyo xeerarka Soomaalida aqoonyahan wax ka garanaya xeerarka dawladaha iyo jid u bixinta siyaasadaha isqooma ugaasi ducadoodu kacdo haddii ay rabbi codsadaan hooyooyin aan huba inaysan waxba ku doorsanayn Soomaali heshiisa iyo samajacle faraha ka badan oo wax walba oo garab ah laga heli karay si ay wada hadalladu u guuleystaan maadaama ay yihiin milkiilayaashii dalka iyo dawladnimada Soomaaliyeed dhammaantood wax door ah lama siin kaalina lagama siinin loomana yeeran kadibna waxa warbaahinta loo marsiiyay in shirarkii la isku fahmi waayay cidii doontaba sababta ha lahaatee siyaasiyiintii iyo madaxdii inta ku heshiin waayay hadda waxay iskugu imaanayaan xiradii hore ee xalane haddana aragtidayda mudan in magac kale loo bixiyo
taa oo ah xayndaab yar oo ku dhex yaalla ayraboorka Muqdisho. Waa goobta ay reer galbeedku ka degan yihiin Soomaaliya si dhab ahna aan cidi u ogeyn inta badan shaqooyinka lagu qabto. xalin waa dowlad kale oo ka dhex samaysan ummadda Soomaaliya dhexdeeda ka samaysan warqadii waxa qoray Prime Ministerka wuxuuna weydiiyey taliya ciidanka Amazon markaas joogay inuu noo soo gudbiyo dhammaan hay'adaha private army-ga hay'adaha ammaanka oo ah private-ka oo xalan dhex jooga waa ka leexleexdeen aka aakhirka waa noo soo diray waagaas wax deganaa 28 company xalan dhexdooda deganaa oo adduunyada afarteeda dacladka kala yimid marka waaga anaga ujeedada wax kale ma ahayn in horta inaan ogaano yaa jooga inta ta kale yaa u shaqaala ah oo lagu qasbo markaas in shaqaale Soomaali hayr gareeyaan shaqaalahoodana laga qaado canshuur laga qaado inay halka iskugu yimaadaanna waxaa ka dambeeyay ajnabiga meesha degan waxa ayna yeelan doonaan shirar aysan wax door ah ku lahayn shir qorshihiisa cid kala diyaarinayso shir ka dhacaya meel aan laga helayn Soomaalidii si walba u joogtay magaalooyinkii kulamadooda sabab la'aanta loogu kala tagi jiray shir ay si buuxda marti ugu yihiin shir aysan ku kala tagi karin ayaga oo aan meel marin qorshihiisa shir ay kaliya wixii loo yeeriyay ayaguna bulshada dib ugu sii meerin doonaan waana taas midda dareenkaaga si kale u rogi doonta marka aad dhab u fakarto ma ahan wax faallo iyo laba lagu soo koobi karo gaboodfallada ay ku kacayaan madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaalidu dhacdo walbana waxa ay ka daran tahay tan kale malaha waxa ayba ku raaxaystaan wax kasta oo hoos u dhigaya sharafka iyo karaamada dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxaase wax walba ka sii daran in madaxda iyo siyaasiyiinta sidaa u dhaqmaya uu mid walba leeyahay taageerayaal ciida ka badan tilaabo kasta oo uu qaadana ku bogaadinaya si uu tan xigta uga sii daro ayagoo moog kuwa mashxaradaya inay ayagu guran doonaan miraha guuldarrada haddii aysan haatan isdaba qaban soo nalama gudboona dhammaanteen intii aan dhalanteed ku taageeri lahayn madaxda iyo siyaasiyiinta inaan dhabta u sheegno si ay sharaftooda iyo teennaba u ilaaliyaan kadibna aan dhexda u guntanno si wada jir ah dhismaha dowladnimo ku taagan aragti Soomaaliyeed